booliiska São Paulo, Minnesota ayaa baaraya oo ku raajooga nin dhawaan toogasho ku dilay wiil dhalinyaro Soomaali ah mid kalena ku dhaawacay. Cabdirashiid Maxamuud oo ah aabaha dhalay wiilka la dilay oo lagu magacaabo Maxamuud Cabdirashiid ayaa la kulmay hay'adaha amniga wuxuuna dalbaday in cadaalad la hor keeno ninkii dilka wiilkiisa ka dambeeyay. Wariyahayna Maxamuud Mascade ayaa aaba Cabdirashiid Maxamuud ka wareystay qofku ahaa wiilkiisa iyo waliba qaabka dilkiisu u dhacay. wiilkayga Maxamuud Cabdirashiid wuxuu ahaa nin fiican oo wax bartay oo waxbarashada ilaa college ka gaaray haddana shaqo fiican watay oo taraaka shaqaynayay marka 27kii bishii labaad ayaa isagii wiil saaxiibkii ah oo gaari ku dhex jira oo haddana raba inay shaqadiisii aadaan taraakii oo ay mid saaxiib kale isugu hayeen marka wuxuu yiri isuga meel igu suga iyagoo halkii fadhiyo oo ku sugahaya ayuu nin u yimid nin wadada sayidwaagada socda ninkii marka wuxuu yiri uu ku soo leexday wuxuu yiri ma haysaan waxyaalahan la cuno ee drugska ma gadaan meel u gada ma garanaysaan ma yaan yiri marka waxaan yiri intaa midna ma garanayno markaan muraadi ka dalacanay ayuu basoolad kala soo baxay gacantu jeeb kula jiray uu nashuud gareeyay wiilkaygu marka sidaas ay xabad ugu dhacday wiilka tan dhaawac uu ku yahay waa gart marka sheekada ay sidii wax u dhaceen cidda kula wadaagtay ama ku sheegtay waa wiilka kale dhaawac ah isaga maxaa gaaray wiilka kale isaga gacanta midigta ayuu ka jabay halka jabalka agtiisa ayuu ka jabay marka isaga waa kaban yahay uu fiican yahay gurigoodu joogaa Allah una xariistay wiilkaaga Maxamuud wax hore oo miyaa jiray uu idin sheegay dad daba jooga ama arrimo kale oo loo raadsan karay waxyaabaha noocaas wax cabsi ah oo jirtay ma jirta hore ku sheegay maya wiilkaygu wax xumaan ah iyo wax cabsi ah iyo wax ma garanaysaa hadda dhalinyarada laga shakisan yahay maanta looga shakisan yahay midna muusan ahayn fiican oo balwad lahayn oo gurigooda ku eego marka gurigoodu ka baxay oo yar kala qaaday marka waqtigiisu ma dhamaaday nin hadda ma garanaysaa waxyaalahaas oo dhan ku jiray ma ahayn saaxiibadiis oo dhaway nin fiican oo sheegeen annaga dhalay waan ogeyn nin fiican yahay marka waa gartay marka qofka dilka geystay ilaa hadda marka laga yimaado inta uu ku sheegay wiilkan kale dhaawaca cid garatay in la soo qabtay in lagu raad joogo ilaa hadda arintiisa hadii ninkii dhibka geystay wali lama soo qaban dawladdu ma noo sheegin inay soo qabatay waxay noo sheegeen inay gudub jiraan raadinayaan waxa jirta in aad magaalada Minneapolis barnaamij ku sameyseen aad ku barnaamijdeen oo la xiriirta dilka wiilkiina ujeedada barnaamijkeena iyo waxyaabaha doonayseen in aad ku heshaan barnaamijkan barnaamijkii sabtidii daraatay barnaamijkan barnaamijkanagu wuxuu ahaa in wiilkaygii mar hadii uu la dilay in cadaalad loo helo waayo wiilkaygu wiil farbadan Soomaaliyeed baa ka horeeyay kuwa badan inay ka dambeeyaan balga yaaba qofka dilay hadii la soo qoway wax kala yaab inuu kala qabto hadana dilo barnaamijkanagu marka wuxuu ahaa in cadaalad helno oo qofkii wiilkayga dilay la helo oo la soo qabto oo la yiraahdo waa qofkii wiilkaaga dilay barnaamijkanagu saas oo dawladda ayaan ku barnaamijinay marka barnaamijkaas barnaamij saas oo cadaalad baan ku raadinay cadaalad haad wada hadeen marka laga yimaado marka inaad barnaamij magaalada ku dhigteen aad cadaalad ku dalbaysaan oo wiilkaaga iyo wiilasha kale Soomaaliyeed ee gobolkan lagu dilay cadaalad u raadinaysaan ma jira madaxda gobolka ama kuwa ciidanka booliska wax xiriir oo aad la sameyseen oo arintan ku saabsan madaxda booliska waxaan la sameynay kiiskii maan weydiino waxaan idhi wiilkii Maxamuud maxaad ka haysan kiiskiisi in cadaalad baan u baahanahay anaga family baan nahay carruurtii ma seexato aabihi ma seexdo waalidkii guriga ma seexdo waxaan ku seexan karaa inaan helo cadaalad oo ninkii wiilkayga dilay la helo marka booliskii laga amniga marka waa naqaciyeen waxay dhahay kiis waan ku daba jiraa macluumaad baan ka haynaa kaamirada iyo wixii waan haynaa wax kalena waa noo dhiman yahay marka insha Allah waan kiiskaas si adag baan baaraynaa